wasiirka horumarinta maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo dhalinyaradu ay dhaqaale badan uga fadhiyaan oo ay dhaqaale badan ka sugayaan. waxaan runtii farxadiya inaan joogo halkan munaasabadan lagu daahfurayo sanduuqa dhalinyarada. fikirka sanduuqu wuxuu ka yimi laba xaqiiqo. xaqiiqada hore waxa weeye in dadkeena boqolkiiba 70 sida la sheego ay ka yar yihiin 30 jir. xaqiiqada labaadna waxa weeye in dhalinyarada boqolkiiba 75 lagu qiyaasaa ay bilaa camal tahay. marka carqaladda ugu weyn ee maanta inoo hor taagan xagga horumarka dhaqaalaha marka laga hadlayo waxa weeye camal la'aanta dhalinyarada. su-aasha markaa waxa weeye maxaa camal la'aanta keenay? su-aasha ku xigtaana waxay noqonaysaa ambata dhigeedu maxaa shaqo abuura? shaqo abuurku muxuu u baahan yahay? shaqo abuurku wuxuu u baahan yahay muruq iyo aqoon iyo maal iyo maamul buu u baahan yahay. maxay naga dhiman marka? waxay naga dhiman muruqii waynu haynaa, maamulkiina waxbaynu ka haynaa. waxay naga maqan laba shay. waxay naga maqan maamulkii, waxay naga maqan maalkii iyo farsamadii bay naga maqan. kay noogu daran waliba waxa weeye waa maalka. marka la sameynayo ganacsi amba shaqo la abuurayo, maalka looga baahan yahay wuxuu ka yimaadaa amba ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta, amba wuxuu ka yimaadaa bangi amba hay'adaha waxdeymiya, amba wuxuu ka yimaadaa sanduuq kan oo kale ah. maadaama dhalinyarada caalamka oo dhan ay mashkilad ay haysato sidii ay maal u heli lahaayeen amba loo deymin lahaa, wadamada badidoodu waxay leeyihiin sanduuq sidan oo kale ah oo loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo shaqo abuurka dhalinyarada. haddaba sanduuqan siduu u hana qaado oo u guulaysto waxaa loo baahan yahay in la isdul taago 6 qodob. qodobka ugu horeeya waxa weeye inuu ku dhisnaado tartan, hadday tahay heer qaran, hadday tahay heer gobol, hadday tahay heer degmo, si cidda ugu qalantaa ay u hesho taageerada ay u baahan tahay. kalabaadna waxa weeye in xagga ciddii ku guulaysataa aan halkaa lagaga hadhin ee la siiyo taageero farsamo oo joogto ah. ta saddexaadna waxa weeye qoondadan ay dowladdu u qoondaysay sanduuqa waa seed fund amba waxa weeye waa abuurki kuma filayntani. waxaa loo baahan sanduuqa in la koriyo oo ganacsatadu dowladda la koriso sanduuqa ayaa loo baahan yahay. sidoo kale waxaynu marti uga nahay bahda caalamka inayna ka geystaan gacantooda ka geystaan sanduuqa. baananka waxaa loo baahan yahay inay dabciyaan. mashkiladda ugu weyn ee dhalinyarada haystaa waxa weeye qofku hadduu doono inuu deyn qaato waxa la weydiinayaa damaanad baa la weydiinayaa iyo garantoor amba cid ka mas-uula. qofkii dhalinyarada ahaa dee wuxuu damaanad dhigo ma haysto, dhulna ma laha, daarana ma laha, hanti kaloo meel u taallana ma laha, waaba nin yar amba waa qof yarbaba rag iyo dumarba doona ha noqdee. marka inay baananku dabciyaan. weliba waxaan ku talin lahaa in mararka qaarkood sanduuqu laftigiisu uu damaanad qaado si uu ugu fududeeyo dhalinyaradu inay bangiga deyn ay ka helaan. waanu sanduuqu ku ekaanu inuu deyn bixiye amba deeq bixiye isla markaana damaanad qaadee uu noqdo. waxayna qodobka 6aad ugu muhiimsan waxa weeye waa maamul wanaagga sanduuqa. haddii maamul wanaag sanduuqa laga helo, sanduuqu wuu kobcayaa waana lagu soo dhiiranayaa. aad baa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.